waxaan rabaa inaan dib u xasuusanno 26 juun maxay tahay 26 juun waa markii ugu horreysay taariikhda been lagama sheego waa markii ugu horreysay ee calan Soomaaliyeed ee calankaas buluuga ee shanta gees leh xidigta shanta gees leh laga taago gobollada waqooyi Hargeysa laga taago way khilaafka iyo colaadada markay hadda dhasheen dad baa dhahaya calan kale la taagay wax ka jira male calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah ee xidigga shanta gees dhexda uga taalo meeshii ugu horreysay ee laga taagay wuxuu ahaa Hargeysa waxaana la taagay 26 juun ayaa la taagay calankaasi marka calan gobol gaar u leeyahay ma aha calan degmo gaar ay u leedahay ma aha calan qolo gaar ay u leedahay ma aha calan waxaa weeye qofka Soomaaliga meel kastuu joogo ha noqoto Soomaalida ku nool Soomaalida deegaankeedu uu yahay deegaanka Amxaarada ama Xabashida Soomaalida ku nool dhulkan Soomaalida ku nool Jabuuti dadkaas oo dhan buu ka dhaxeeyaa waa hooyadii ummadda Soomaaliyeed way calankaasi marka dadka walaalaheen ah ee reer waqooyi waxaan leenahay khilaaf waa dhacaa dagaal oo sokeeyana wuu dhacaa Soomaaliya uguma horreyso waddan uu ka dhaco dagaal sokeeye uguma horreyso wuxuu ka dhacay Maraykanka dagaal sokeeye wuxuu ka dhacay Faransiiska wuxuu ka dhacay Talyaaniga wuxuu ka dhacay wadamo badan buu ka dhacay ma dhicin colaad shacabkooda uurka isugu hayo oo ay dalkooda ku kala gooyaan ma dhicin waxay la mid tahay marka walaalay reer waqooyi waxay dhahaan maxay noo daba socdaan bay dhahaan maxay noo daba socdaan mayna daayaan horta waa jecelnahay ilaahay baa igu og ee waa jecelnahay jecel ayna ayaku isjeclayn baan jecelnahay maxaa yeelay waxaa weeye waxay la mid tahay laba nin oo walaalo ah ee intay isku xanaaqeen uu mid reerkiisii la aaday meel bahalla galeen oo bahallo ay ku nool yihiin dugaag iyo libaaxyo iyo bahallo ku nool yihiin ayuu reerkiisii la aaday kii kalena wuu ku dhagay oo wuxuu ogyahay hadduu meeshaas aado inay bahallo cunahayaan iyo dugaag inay cunahayaan asagii ilmihiisaba marka wuu ku dhagan yaho ma oggola walaalkiis inuu ka tago oo uu duurkaas aado ma oggola annagu taasay noola mid tahay waxaan ugu dheggannahay ma aha khayraad baad ka helaysi ma aha waxbaad ka helaysi maaha waxaa weeye walaalkeen oo meel duur ah ku socdo weeye meel bahallagaleen ah ku socdo weeye gacanta inaan ka qabannaan rabnaa un dhahna war ka joogayna ilmaha kaa dhiman yeen dugaagu ku cunay sababta ummadda Soomaaliyeed markay kala tagto midba meel baa lagu cunahayaa waad garanaysiin shantii sac ee midna madoobaa midna gaduudnaa midna caddaa dugaag baa u yimid markaasuu wuxuu dhaha war sacaan cad aan cuno sababtoo aan walku soo raacahayaa markaasay oggolaadeen cunbayaan saca kii ugu dambeeyey markuu cunahay wuxuu dhahay waxaa lay cunay buu dhahay markii saca cad aan oggolaaday in la cuno ayaa lay cunay buu dhahay haddaan diidi lahaa layma cuneen buu dhahay marka haddaan kala tagno ee Soomaalidu kala tagto ee qabiil kasta calan samaysto ee qabiil kasta uu gobol sheegto ee qabiil kasta deegaan sheegto colaaddu waxay ka dhex bilaabanaysaa qabiilkaas naftigiisa sababtoo deegaanka qabaa'ilka leh qabaa'ilku waa ku kala badan yihiin marka hore waa isku reer marka dambe hoos bay u kala bixi qabiil baa saydarayni oo awooddii qaadani kuwii kale ayaa xuquuqdoodii ay ku lahaayeen siyaasadda ayaa loo diidayaa markaas maxaa dhacaysa dhexdoodii inay dagaalamaan dhexdoodii marka inay sii kala burburto ayaa imaanaysa anna kuma doonayna waxaan rabnaa
qarannimo inaan harsanno ayaan rabnaa geedka qaranka inaan hoos harsanno annakoo dhan markaas isuma muuqanayno caqligu ma oggola laba walaalaa inay kala tagto caqligu ma oggola caqligu wuxuu leeyahay qur-aanku wuu noo sheegayaa wactasimuu bixablillaahi walaa tafaraquu ayuu leeyahay war xarigga ilaahay waa qabsada oo ha kala tegina inaan kala tagno ma aha inaan isla joogno weeye inaan isqadarinno weeye inaan xuquuqda qof kastoo naga mid aan dhowrno weeye waxaan leenahay marka 26 juun waa maalin soomaaliyeed ee maalin gobol ma aha maalin qoys ma aha maalin reer ma aha maalin ummad soomaaliyeed kuwa dhalan doona 100 sano dabadeed kuwa dhalan doona maalin ay xusaan bay noqonaysaa maalin ay u istaagaan bay noqonaysaa marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waa inay midowdaan waxaa ka dambeeyay 26 waxaa weeye waa 27kii annagu hadda jabuuti waa dawlad laakiin haddana waxaan ognahay inay yihiin walaalahan waan dabaaldegaynaa sababtoo waa dawlad soomaaliyeed weeye markii ummaddu burburtay xaggee lagu kala cararay waxaa lagu cararay jabuuti iyo halkaan lagu soo cararay halkaan maxaa lagu soo cararnay ma garanaysa haddaanaan deegaan ku lahaan lahayn dhul iyo deegaan iyo dad haddaanaan ku lahaan lahayn miyaan u soo carari lahayn uganda maxaa noogu cararay soo ma garan tanzania maxaa noogu cararay waxaa weeye dhul baan ku lahayn dad baan noo joogay na soo dhowaynahay oo walaalahood ay waddanka burburay walaalahood baa joogay jabuuti markana waa waddan soomaali waa dad soomaaliyeed wey walaalo wey waan dabaaldegaynaa 27 juun ayadana waan dabaaldegaynaa maxaa ku soo xiga waxaa ku soo xiga hooyadii xorriyadda oo ah 1 luulyo waa israaci labadii gobol wey israaci labadii gobol markay israaceen wey waa hooyadii qarannimada soomaaliyeed wey qarannimada soomaaliyeed hadday burburto waxaa weeye gobolladuna waa burburhayaan marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ha xasuusato wadajirka wanaagga ku jira ha xasuusto walaaltinimada wanaagga ku jira qalad waa dhacay waa la isdulmiyey laakiin waxaan soo qaadanayaa maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee somaliland baan soo qaadanaya hadalkiisa waa ku jiraa youtube-ka waad ka raadin kartaa ma been farriimahayo wuxuu dhahay walaalaheenow qabiil soomaaliyeed idinma dilin buu dhahay daarood idinma dilin buu dhahay hawiye idinma dilin buu dhahay degel iyo marifle idinma dilin buu dhahay nidaam dhisan oo dawlad ah ayaa idin dilay buu dhahay oon ku jirna annaku dhahay bal fiirsha nidaam dawladeed oon ku jirno ayaa idin dilay buu dhahay oo xukun ceshanahay soo ma garan marka waa sidaas maaha qabiil soomaaliyeed kuma duulin qabiil kale gobol uguma tegine hala laayo ma dhihin hala dumiye ma dhihin laakiin waxay ahayd uun xukun dictatorship ah oo haddana ceshanaya xukunkiisu ahaa qofkii ka hor yimaada dilahay kuwa koonfureed buu dilay kuwa muqdisho buu dilay kuwa gaalkaciyuu dilay kuwa ceelan laga dumiyey kuwa waxaasoo dhan baa dhacay ma aha marka in aadda qalbiga lagu qaado south africa waxaad fiirisin south africa 79 sano ayaa midabka ilaahay u dhariyey jinsiga ay leeyihiin ayaa loogu diiday xuquuqdoodii bini aadamnimo ee ilaahay uu ku karaameeyey ayaa loogu diiday waxaa la dhahay wax ma baran kartiin waxaa la dhahay ganacsi ma geli kartiin waxaa laydin abuuray ayay ka dhaadhiciyeen gaaladii ka timid holland oo booliska la dhahayay waxay ka dhaadhiciyeen in loo sameeyey dadkan madow in ay u adeegaan dadka cad ayay ka dhaadhiciyeen markaasay dhaheen dhaqaale ma yeelin kartid sababtoo qofku hadduu dhaqaalo yeesho xor buu noqonayaa waxay dhaheen wax ma baran kartid sababtoo qofku hadduu wax barto xor buu noqonayaa markaasay waxay dhaheen wax annakaad noo shaqaynaysa guryahaad ka shaqaynaysa beerahaad ka shaqaynaysa south africa 79 sano xorriyad bay qaateen dadkii madoobaa boqolkiiba 95 way dadka madow dadka gumaysanahayana waxay ahaayeen boqolkiiba 5 xoolihii dhammaa iyo hantidii iyo barwaaqadii dhammayd waxaa haystay iyo cilmigiiba waxaa haystay dadka cad maalintaas hadduusan u soo bixi lahayn nin xakiim oo caaqil ah ee la dhaho nelson mandela hadduusan u soo bixi lahayn ee uu dhihi lahaa sida caqliyadda soomaalida ku dhisan hadduu dhihi lahaa waana la dubay waana laayay waan aar gudsanaynaa hadduu dhihi lahaa ee caddaankaan laynaynaa ee caddaankaan waddanka ka saarayna hadduu dhihi lahaa
ساوث أفريقيا محي كدن بين لهي بل تقيل كيف كان ساوث أفريقيا محي كدن بين لهي محي كدن بين لهي ودن كلا دتسن ودن كلا تجي ودن قبائل مركزود دجالمي ودن لو كلا تجي ودن حواليه دمان لقى قاطي اللي جاي يرب أي نقول لهي marka caqliga ilaahay uu sii waxa weeye wuxuu dhahay annagu oo dhan waxaan nahay South Africa ayaan nahay cad iyo madow haddaad fiirisiin film waxaa jira laga sameeyey oo cayaarihii rugbiga ayaa lagu dhigayay adduunka tiimka South Africa waxay wateen funaanadihii kalarkii funaanadihii uu ka tagay isticmaalkay wateen aad bay dadka madow uga xumaayeen waa diidanayeen Nelson Mandela markuu la wareegay tensionka ka jira aqalka looga taliyo waddanka ayuu arkay markuu xafiiskii fariistay ayuu gabadhii sekretariyadda ahayd wuxuu ku dhahay maxaa dhacay maxaa ka jira xafiiska markaasay waxay tiri addaankii ka shaqaynahayeen waxay aruursanahayaan alaabadoodii ayay aruursanahayaan markaasuu intuu soo baxay ayuu la hadlay wuxuu dhahay annagoo dhan waxaan nahay South African baan nahay buka xor baa tiin qofkii rabo waa tegi karaa laakiin South Africa lama kala xiguu dhahay لين كمان حجة بلادنا نقول قال لين كمان حجوده إيجوجا سيدي بكوجوجا عيارتي بو آلي تدخل ماذا وادي دنا فنانة تلقوا بيلا هي كتدي منها هي مركزون فنانة ديكش فنانة دي أي كتدي منها هي أي دي دنا يدخل مدوب بكش مركزون عيارتي كتير كلام عيارتي نواب بوليس أنك عقلي أن حقوق جرا مركان لنا هي وان لنا دلي وان إزدلني وين ندلين وان وحاس عقلي معه ومدلو مكلا غيره وحاس ومدلو مكلا فوقيه ومدلو مكلا جويه تاريخ ده في صدق تاريخ ده كم كلا قف مد اسمه كلا جويه أو قيبية تاريخ عرق الراسية قف مكلا جويه أو تاريخ لقى أو تاريخ كوريا بين أشياء لكن تاريخ ده المقرأ تاريخ ده المقرأ قف السكر اللي على القرآن ودن عربيات هالنقضاء أما ودن قالها هالنقضاء ومدة وحى سكاني أمريكا وحى كدعي تقالهم سيفل وور حنبا كدعي وحى إسبابيين سيفل وور حنبا كدعي حتى والذي الساوث كي نورث كي وتقالمين والذي الساوث كي ولا قاعد كادي وحيدها وانا اللاين وحيدها ودن كان بقرينا وحيدها وأباينا مدهان marka waxa way Soomaalidu iyo liidariskooda waxa lagu kala garanayaa qofka ummadda isu keenaya iyo qofka kala geynaya qofka ummadda isu geynaya waa liidar waa hogaamiye ummadda liidarka hogaamiye ummaddu wax ma hogaamiso haddaad aragtid nin dhahay ummadda ka baqa oo dhaha dadka raba oo anigu ma samayn karo liidar ma ummadda waxay rabtaa qof hogaamiye ummaddu waxayna arkaynin qof arka ee dhaha halkaasaan idinku hogaaminaya ayna garanaynin wax ka hor iman doona soo ma garan marka ma aha Soomaalidu inay googo dhacay waa hore ka waran miyiga waagi la dagaalami jiray oo qabaa'ilka loo dagaalami jiray haddii boogahaas xubno wadada ay boogahaas xabaan ka waran ma caqli baa qarniga 22aad in boogahaas ay dadka iyo gabayadii la isu tirin jiray inay xogaan maya Soomaalidu waa Soomaali mana kala maaranto midnimadooduna waa muhiim bay u tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ayay muhiim u tahay kuwa Itoobiya ku harabay muhiim u tahay kuwa inta joogay muhiim u tahay ogaada marka waddanka burburay qolada inta joogta sagal kala sii bay hayeen awood siyaasadeed ma lahayn awood dhaqaale ma lahayn awood fashal ma lahayn laakiin dadkii markay ku soo biireen ay yimideen ayay waxa u soo baxday quwad siyaasi ah quwad oo maaragtay ay siyaasadooda uga qayb qaataan hadda levelka ay marayaan Soomaalida halkaan degan levelka ay marayaan siyaasadda meesha ka gaareen iyo dhaqaalaha meesha ka gaareen iyo socially meesha ay ka gaareen bulshada meesha ka gaareen marka ummadda Soomaaliyeed waa mid midnimadaas waxa la rabaa dhalinyaradiina yaan wax been aan la idinka dhaadhicin yaan aabayaal iyo wax aan la garanin aan la tirin qabyaaladu waa qurun nabi maxamed baa dhahay salaadan tukanaa 5 jeer نبي محمد بن قصلنا وحونا دهي إنها ممتنة قبيالته وأوريسا وده وبخت أورحيا كهرة فكسر ربنا إن قبيالته كفانا وقبيه كتيرنا وعلى مصر ما يسنوا ثم قال على كان وعلى كاس ومدة الصوماليات السجام مدين نمام مدين كر على كلا نمام مدين من ما كنا برينا على قبلات هذه حتى أنت اللي كانوا إمسا ده يسألون على كلا كمية ما أدري سنين أو كمية فقال بعد هاي على كلا لكن أفكس الصومالية ولاية واكل أنا كمية
oo qofna aan laga xigin oo qofna laga xigsan karin waa calankaas weyn marka dhallinyarada waxaan leenahay wiilashii iyo gabdhihii wiilasha basay sheegaan 13 leegada marka la leeyahay wiilasha bashay ayaa la sheegaa laakiin nin kasta gabar baa ka dambaysay dahabkoodii bay gadeen dahabkoodii muriyadahoodii bay gadeen soo ma garan lacag mayna haysan wiilashani lacag ma haysan gabdhaha dahabkoodii iyo muriyadahoodii gaday gabdhaha ayaa safarkooda biilahayay gabdhaha ayaa cunto u diyaarinayay mid kasta oo 13 ka mid ah gabar baa ku lamaanay marka 26 weey 13 ma waa 26 gabarta gabdhaha ku ka dambeeyay wiilashaas kan ugu yar wuxuu jiray 17 imagine maskaxdiina taqayula 17 wiil jira ee haddana wadan aan weligiis dawlad noqon wadan aan dawlad noqon ummad aan weligeed isu imaanin ee ceelal iyo daaqsi kala lahayd oo qabaa'il ceelal iyo kala deganay iyo daaqsi kala degan ragga ku fakeray qarnigaas ku fakeray in ay isu ummadan isku midabka ah ee isku diinta ah ee isku afka ah inay mideeyaan maantana mid doctor sheeganaya ama professor sheeganaya ama sheeganaya inuu caaqil yahay ama sheeganaya inuu siyaasi yahay ayaa wuxuu rabaa inuu kala gooyo qarnigii kooyo inuu qabiilku kala gooyo rabaa wiilashaasna waxay garteen gabdhahaas waxay garteen in ummaddan ay mid tahay isku wadata ay isu keeneen waana ku guulaysteen maanta miyaa marka naloo sheegahayaa inaan kala tagno qabiil xeelashii iyo daaqsinkii iyo deegaankaan kala lahayn dhulkaan uqamaya noo sheegahaya ma waxaa noo sheegaya professoraan noo sheegahaya dhahay professor baan ahay oo digrii baan wataan ku dhahay ma jirto adinka yaan laydin sirin dhallinyaro yaan laydin sirin ilmihiinna waa midnimada soomaaliyeed ayaa muhim u ah qabiilku wax uu taro mala qabiilku waa qurun nebi maxamed baa yidhi qabiilku waa qurun ha laga tago waan ka tegaynaa qabiilka midnimadeenna waxay ku xidhan tahay ummadda soomaaliyeed ayay ku xidhan waxaan u dabaaldegaynaa maanta 26 juun berri dambe waxaan u dabaaldegaynaa 27 juun marka dambena waxaan u dabaaldegaynaa 1 juun ilaahay waxaan ka rajaynaa ummadda soomaalida oo mid ah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaalida oo wada xor ah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo midowday oo cuqdada ay ka baxday oo quluubtooda ilaahay isu saafiyey oo quluubtooda mideeyey oo midnimadooda ay xoogaysatay ee geeska afrika awood iyo talo weyn ku leh waana ka tashadaa hadda biri waana ka tashadaa sidee maxaa nala kugu diiday suuqa east africa maxaa nala kugu diiday geeska afrika annaka east haddii la east annaka soo ma garan waa ducufka la haysto wey dowladnimadeena ducufka haysto wey soo ma garan marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ha midowdo ummadda soomaaliyeed ha xorowdo ummadda soomaaliyeed quluubtooda ilaahay ha isu soo jeediyo ummadda soomaaliyeed ilaahay ha ka dhigo ummadda ugu xooggan ugu tayo fiican ee geeska afrika ku nool ilaahay ka dhigo